howlgalkani ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen inta u dhaxaysa magaalada Marka iyo deegaanka Jili Marka ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxaa fulinayay ururka 14aad guutada 14 Oktoobar ee xoogga dalka Soomaaliyeed. ujeedka howlgalka ayaa ahaa sidii loo ciribtiri lahaa haraadiga maleeshiyaadka Al-Shabaab. howlgalka ayaa inta uu socday ciidanku waxa ay ku soo saareen miinooyin ay maleeshiyaadka Al-Shabaab geliyeen wadadaasi u dhaxaysa Marka iyo deegaanka Jili Marka oo ay doonayeen inay ku waxyeeleeyaan shacabka wadadaasi ku safra. ciidanka ayaa sidoo kale waxa ay sameeyeen baaritaano ay ku baarayeen gaadiidka wadada maraya iyo guryaha qaar oo ay tuhmayeen in markaasi ay ku dhuumaaleysanayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo horjoogayaashooda. howlgalkan ayaa waxaa markaasi uu ahaa mid ay soo dhaweeyeen shacabka ku dhaqan magaalada Marka iyo nawaaxigeeda. howlgalka waxaa horkacayay abaanduulaha ururka 14aad guutada 14 Oktoobar laba xidigle Daadir Xasan Cusmaan, waxaana uu tilmaamay in howlgallada noocan oo kale ah ay sii wadi doonaan inta maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ka nadiifinayaan deegaanada hoos yimaada degmada Marka sida deegaanka Jili Marka, deegaanka Gandarshe, Dhanaane iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku dhuumaaleysanayaan. Maxamed Muuse Maxamed, warbaahinta codka ciidamada qalabka sida degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose.